adeegyada aaladda baraha bulshada ee dadka ay ku wada xiriiraan ee Facebook, WhatsApp iyo Instagram ayaa dib hawada ugu soo laabtay kadib markii ay hawada ay ka maqnaayeen ku dhawaad 6 saacadood sida ay shirkaddu ay sheegtay. Shirkadda waxay sheegtay in sababta ay ahayd cilad ku timid hanaanka ay shirkaddani ay u shaqeeyaan aaladaheeda. Dhammaan saddexda aaladood ee baraha bulshada ayaa waxay ahaayeen kuwa iska leedahay shirkadda Facebook. waa muddadii ugu dheeraad baa la leeyahay ee bartani bulshada ay hawada ay ka maqnaadaan aaladahani oo ay isku wada xiran waxaana ay yihiin silsilado isku tixan oo ah hal aaladood laakiin waxay u kala shaqeeyaan qaabab kala duwan. dad tiradooda lagu qiyaasayo 10.6 milyan oo qof oo ku kala sugan guud ahaan caalamka ayaa waxay soo sheegeen in ay dhibaatadani ay saameysay oo ciladan Facebook ku timid ay saad ay u saameysay. dadka qaarkood waxaa la sheegay in telefoonadooda dhulka ku garaaceen oo ciladu ayagu inay gaar tahay loo maleynayay. shirkaddan ayuu adeegoodu oo hawada waxa ka baxay qiyaastii abaar xalay 40 ilaa 50 intii u dhaxaysay ee daqiiqo xalay xilliga Geeska Afrikada bari. bayaan ay soo saartay shirkadda Facebook ayaa waxa lagu sheegay in aysan jirnin wax cadeyn ah oo muujinaya in xogta dadka isticmaala baraha bulshada galaangal lagu yeeshay inta cilada bixintu ay socotay. isniintii shirkadda Facebook ayaa barteeda Twitter-ka waxa ay ku soo qortay raaligelin ku aadanida dad ay saameyn ku yeesheen adeegyadani oo hawada in yar ka maqnaay in muddadaasi dheer ay bartana bulshada ay hawada ay ka maqnaato ayaa ahayd wax dhif iyo naadir ah oo adduunka soo marneen. qubarada falanqeeya arrimaha ayaa waxay sheegayaan in ay carqaladani ay ku timid Facebook iyo shirkadaha kale ee silsiladaha ah ee bahwadaagta ay yihiin ay ka dhigan tahay mid khasaare xoog la soo gaarsiisay shirkadda Facebook. qubaradu waxay sheegeen in saacad walba lacag dhan $500 milyan oo xayeysiin ah ay qasaarinayeen shirkadahani. saamiga shirkadda Facebook ayaa waxaa la sheegay inuu hoos u dhacay 5% suuqyada saamiyada magaalada New York ee dalka Mareykanka. ciladani ku timid adeegyada baraha bulshada ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay 3 bilyan iyo bar qof oo isticmaala shirkadda Facebook.